kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbood naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare wasiirka amniga fartaag ayaa kulan xasaasi ah ka yeeshay marxaladda siyaasadeed midda amni ee jahwareerka ku jirtay maamulka jubbaland mas-uuliyiintan ayaa gorfeeyey oo diiradda saaray sidii loo wajihi lahaa marxaladda siyaasadeed midda amni ee maamulka jubbaland ay ku jireen muddooyinkii ugu dambeeyey ama muddada dheerba ay ku jireen ilaa iyo xukuumadihii iskaga dambeeyeyba waxay mas-uuliyiintani ay ka tashadeen oo diiradda lagu saaray sidii jubbaland loogu dhisi lahaa maamul sifo sharciga lagu soo dhisay beelaha degan jubbaland ama ummadda reer jubbaland ay ku midaysan yihiin isla markaana meesha looga saari lahaa maamulka uu hogaamiyo axmed maxamed islaam oo waayihii dambena dagaal xoogan kula jiray xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba soo jeedinta iyo ra'yi isweydaarsiga mas-uuliyiintaasi iyo madaxweyne xasan oo su-aalo weydiiyey labadan mas-uul sida ay u arkaan iyo shaksiga ay u arkaan in uu madaxweynaha maamulka jubbaland u noqdo oo dowladda federaalka ay soo magacowdo ama ay soo dhisto ayaa cadho xoogan ay ka dhalatay mid ka mid a mas-uuliyiintaasi iyadoo weliba si aad a loogu dhagan yahay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare qofka uu soo jeediyey uu doonhayay in loo magacaabo madaxweynaha maamulka jubbaland ama loo soo dhiso madaxweynaha maamulka jubbaland ee ku-meelgaarka inta laga gaadhayo doorasho ay reer jubbaland ku midaysan yihiin isla markaana lagu qabto gudaha maamulka jubbaland haddaba fartaag iyo xamse cabdi bare ayaa ra'yi ahaan ku kala tegay waxa uuna nin walba miiska soo saartay shaksiga uu u arko iyo beesha weliba uu u arko in ay waqti xaadirkan jubbaland midayn karto mateli karto qaban karto kursigan jahwareerka ku jira ee aadka la yskugu haysto ee ra'yi ahaan iyo siyaasad ahaanba lagu kala duwan yahay waxaynu soo qaadan doonaa labadaasi mas-uul iyo beelaha ay kasoo jeedaan waxaan ugu dambeyn iyadana dul istaagi doonaa go-aanka madaxweyne xasan isagana ka qaatay ee uu markaasi ku raacay in sida ugu dhaqsiyaha badan ama go-aanka halkaasba laga soo saaray ayaan iyadana soo qaadan doonaa waxaan dhinaca kaleeto dul istaagi doonaa arrimaha siyaasadeed ee dalka uu ku jiro marxaladda doorashooyinka iyo khilaafka ka taagan iyo guddiga doorashooyinka iyo tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee ay qaadeen oo inagu dee aynu ka mashquulnay ayaan iyadana soo qaadan doonaa guud ahaan siyaasadda soomaaliya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ee dalka uu ku jiro ayaan dul istaagi doonaa hadduu alla inoo soo dhawaada muuqaalka like saar aragtidiina nagula wadaaga qeybta commentiga aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir guddoomiyey kulan ay qeyb ka ahaayeen ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo wasiirka amniga wasiir fartaag oo labadan mas-uulba kasoo jeeda jubbaland waxay labadan mas-uul iyo madaxweynuhu ay gorfeeyeen oo ay ka arrinsanayeen oo kulan saacado qaatay sida la sheegay ay markaasi kaga hadleen marxaladda siyaasadeed midda amni ee jahwareerka ee maamulka jubbaland uu ku jiro iyo weliba dadka reer jubbaland oo run ahaantii aynu dhihi karnaba gaabis badan ayaa laga sameeyey sidii la iskugu keeni lahaa looga bixin lahaa marxaladan qallafsan ee siyaasadeed ee ay ku jiraan sidii looga qaadi lahaa ama la yskaga kaashan lahaa ka qaadista cunaqabataynta dhanka hawada gaar ahaan safarka diyaaradaha iyo weliba goodoonka cadowga iyo kooxaha dabacyada kala duwan ay geliyeen madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey oo uu weydiiyey aragtida labadan mas-uul ee markaasi ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreeya jubbaland ee ku matala dowladda federaalka ra'yi ahaan sidaa ay u arkaan sidii lagu dhisi lahaa maamul dowladda federaalku ay la shaqayso maadaama axmed madoobe dagaal xoogan uu kala dhexeeyo villa soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa soo jeediyey in la magacaabo oo madaxweyne ku-meel gaara loo magacaabo mid ka mid a shaksiyaadka isaga ugu dhow qoys ahaan waxa uu soo jeediyey nin isaga isku jufa yihiin isku qoys yihiin afar awow ay soo kala tira mise saddex ay awowga saddexaad iskugu imaadaan sidaa ay xaqiijiyeen ila wareedyo isaga kaag dhow in loo magacaabo madaxweynaha maamulka jubbaland halka fartaagna uu soo jeediyey
in aysan suurtagal ahayn isla markaana aragti ahaan isagu uu qabo in laba qolo un ay ka imaato madaxweynaha dowladda federaalku ay dhisayso ee sida ku-meelgaadhka jubbaland loogu samaynayo ee marxaladda siyaasadeed ee kala guurka iyo midda jahwareerka ee jubbaland ay ku jirto looga saarayo. fartaag wuxuu soo jeediyey in mareexaan iyo beesha cawlyahan labadaa beelood oo keliyuun uu ka imaan karo madaxweyne dadku ay isku raaci karaan midayn kara. labadaa qolo oo keliya ayaa suurtagal ah inay ka imaadaan, kama imaan karaan buu yidhi fartaag qof dambe oo ama ay isku qoys yihiin axmed madoobe ama ay isku qoys yihiin ninka la yidhaahdo xamse cabdi barre. suurtagalna ma noqonayso, waxayna sii kordhinaysaa jahwareerka siyaasadeed iyo tuhunada beeluhu ay qabeen iyo markii horeba eedihii loo jeedinayay in maamulkii jubbaland ama deegaanadii jubbaland dhowr iyo 10 sano 20 sano uu kusii socdo hal qof oo keliya uu iska haysto. waxay muujinaysaa buu yidhi in jubbaland ay la wada lahayn oo ay meesha ka baxayso lahaanshaha iyo isku haynta bulshada haddii la qaato go-aanka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre. aad bay ugu kala fogaadeen sida ay dad lagu qanci karo oo ka agdhow filla soomaaliya ay noo xaqiijiyeen. waxay sheegeen inay fartaag iyo xamse cabdi barre ay ku kala fogaadeen aragti ahaan, iyadoo fartaag uu ka eegayo dhinac kale oo ah warbeelaha kaleete ugu badan jubbaland degan iyaga ha laga soo dhex saaro qofka madaxweynaha noqonaya, kaas ayaa midayn kara, taageero badan lagu heli karaa, bulsho badani ay taageeri kartaa, waxa weye axmed madoobena lagula dagaalami karaa. ilaa ujeedadu waxaa la diidan yahay nidaamkan qallafsan ee meeshan iska fadhiya axmed madoobe iyo habka wax u hogaaminayo oo muddada dhowr iyo 10 sana uu ku haysto ayaa laga soo horjeeda. suurtagal noqon maysa baa layidhi marka qof axmed madoobe haddana la dhashay isagii aan u magacawno xamsow ma soconaysaa layidhi, raalli ahow baa layidhi. arrinta arrin soconaysa maaha, arrin bulshada midayn kartana ma aha. arrintan oo saacadihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayay, siyaasiyiin badanna ay la wadaageen, ayaa noqotay mid ka cadhaysiisa bulshada. ra-iisul wasaare soomaaliyeed sidee ayay ugu suura gashay inuu go-aamiyo oo uu yidhaahdo aniga walaalkay ha la iiga dhigo madaxweynaha jubbaland, iyadoo markii horeba hanaanka saami qaybsiga siyaasadeed uu ka taagnaa khilaaf badan oo aad la iskugu haystay. ugu dambeyn ra-iisul wasaare aan dhahnay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa go-aamiyey oo qaatay aragtidii iyo soo jeedintii wasiirka amniga wasiir fartaag. waxa uuna sheegay oo madaxweyne xasan oo labada mas-uulba u sheegay in aysan suurtagal ahayn laba beeloodba inuu ka imaado madaxweynaha jubbaland. markaas ayna leeyahay inaan qabiil ka sheekeeyo waxaa igu khasbaya arrimaha siyaasadeed ee murugsan ee dalkeenu maanta uu ku jiro 4.5 oo aynu ku dhisannahay oo aan laga dhabaynaynin naftigiisa oo sidii saxda ahayd ee ugu dhisnaa aan loo hirgelinayn ayaa khasab ka dhigaysa inaan idiin faahfaahiyo